السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa duubi doonaa video yar oo ku saabsan sida saacadaha dadka substitute u aqbali karaan ama ay u ogolaan karaan markoo ay arkaan loo soo diro ama message marka loo soo diro sida shaqada u aqbali lahaayeen aan ka hadlayna maanta insha Allah. markii shaqada uu sameeyo qofka ala shaqeyn rabtid camal ka soo qaad qofka providerka ama qofka facility ama qofka daycare isla markaa la shaqeynay saacadaha markuu sameeyo ama hadduu imagine soo waco loo sameeyo maxaa la sameeyaa message aa lagu soo diraa oo lagu dhahayo qofkii ala shaqeyn rabtay saacadii oo samaystay lagu dhahaa marka maxaa sameynaya marka saacadii oo samaystay saacadii laga rabaa marka inaa ogolaatid si oo shaqadii adi lagugu xiro markii message ku soo dhacayo noocan uu egyahay marka message ku soo dhacayo telefonkaaga ka soo dhacayo waa fiirinaya marka message markaa aragtid messageka maxaa laga rabaa marka inaad fiirisid laynka saddexaad markaa aragtid linkiyo wataa linkiga markaa ku dhufatid meel kale uu geynaa laakiin mar walba iska fiiri messageka ku soo dhacayo inaad fiirisid aad markaas kadib ka jawaabtid messageka marka messageka markaa kusoo dhufatid linkiga kusoo dhufatid pagekan uu keenaa marka inkastoo hal page weya laakiin laba nooc intaa uu kala arkaysid laakiin hal page wada wato waaye page ugu hore uu kuu sheegayo muxuu ku caddeynaa marka ogolaanshaha ogolaanaysid caddeynteeda waa meesha marka si isa u fahmi lahayd inaa waxa ogolaanaysa wuxuu yahay waxaas inuu kuu sharaxaa marka inaa fahantaa lagaa rabaa marka qaybtan kore aragti qaybta hoose usoo degay marka qaybta hoose marka laba nooca inta hadda lagu kala sharaxoya si aa wax u fahantaa loo baahan yahay marka qaybta kore aa ujeedid oo labadan hore qaybtan kore maxay ka hadlayaan qofka hadduu isa saacadaha samaystay oo lacagta iska bixinayo waa labada hore waxaa lagu tusaa marka qofka magaciisa waqtiga saacadda shaqada lasoo galaayo taariikhda lasoo galaayo meesha qofka siriga uu ku yaalo lacagta haloo rabo inuu bixiyo qofka wixidnaa lagu sheegaa marka lacagtan oo qaybtan kore qofka isagaa iska bixinaya waay marka labadan shaqo way isla socdaan laba maalin isku xigta waay maxaa laga rabaa marka hal mar inaa wada ogolaatid marka taas qofka kan iska bixinaya waay tan kale ee ka bixinayaan imagine dadka ay lacagta ka bixinayaan maxaa marka iidan waatan saddex xab waay gooni loo wada sameeyo iidan saddexda xab hal maraa wada ogolaanaya iidan hal maraa maxadhee shaqadan anaa qaadanaya ama anaa ogol anaa samaysanaya shaqada anaa ogol sidii markaas aa u fahanteed aa u qaadanaya anaa shaqadan u baahan accept yaa dhee markaas waa ogolaha dhee marka shaqada marka saddex beri waaye maxay keliya marka taariikh 20 21 iyo 22 oo subaxda la galaayo 9 subaxnimo ilaa iyo 4 galabtii 7 saac maalintii waaye imagine lacagta bixinaysa saacada $20 waaye subsidized yes waaye marka imagine bixinaysa waaye marka taas caddeynteeda tan kore maxay ahayd no waaye taas no marka aragtid qofka saa lacagta iska bixinaya markaa kusoo dhufatay hadda kaba soo qaad kan koraa kusoo dhufatay oo qofka isa lacagta iska bixinaya kusoo dhufatay markaa kusoo dhufatay markuu ku tusaa marka labadax markaa kusoo dhufatid confirm markaa dhaadid box kusoo dhufatid marka accept jobka kusoo dhufatid oo marka noocaan uu isku bedelaa marka accept kusoo dhufatid meeshaan uu keenaa markuu keeno uu kusaa marka labada xaba aa rabtid oo check mark ku saara ama calaamad ku saara oo ku tusaayo inaa labadan ogolaatay kadib marka maxaa dhahay marka waa ogolahay shaqadan waa qaatay anaa qaatay shaqadan markaa dhahdid kadib muxuu kusoo saaraa marka waxaana hoos kaa tusaa marka uu ku dhahayo sida ay tahay sida lacagta loo bixinayo iyo sida qofka hadduu isa oo lacagta iska bixinayo isa u bixinayo iyo ama hadda imagine bixinaysa sida lacagta u bixinaysa kuu sharaxaa markaas maxaa dhahay marka next yaa dhahay marka ama dhinaca page kala sii aaday page kale markaa aadid muxuu kusaa marka confirmationka uu kusaa marka wixii aa samaysay aa ogolaatay confirmationkiisa kusaa oo ku dhahayo saacadihii aa maanta ogolaatay confirmationkooda waa kana muxuu kusaa marka saddexda beri kusaa marka 9 iyo 20 20 21 iyo 22 subaxdii lasoo galaayo kadib muxuu meeshaan kugu tusaa marka qofka daycare kale magaciisa ku tusaa marka badanaa iska fiiri marka shaqada intaadan ogolaanin magaca meesha ku qoran iska fiiri magaca meesha qoran qofka aad la shaqeynaya ama magac kale qof aadan ka seenin waa dooyaha qof aadan ka seenin aadan rabin inaad la shaqaysid ha ku dhufanin laakiin hadday tahay qof haddii shaqo aragtid inaad markaas qofka la shaqaysid qofka iska fiiri meeshuu degan yahay waa lagu sheegaa kadib waa ogolaan kartaa laakiin iska hubi intaadan accept job iyo waxaasna aadan gaarin magaca meesha ku qoran fiiri magaaladuu degan yahay qof aa rabtid miyaa inaad la shaqaysid iska hubi intaadan okay dhihin marka howiska wixii aad soo samaysay confirmation waa lagu tusaa marka oo lagu dhahayo waa kana saacadii aad ogolaatay maalmaha qofka la shaqeyn rabtid qofka siyaaroo degan yahay saacada $20 waaye qofka daycareka magaciisa inta lagu sheegaa iyo saacadda taariikhda iyo saacadda kulli oo lagu sharaxa wax dhan
markaas taxmiskana soo dhacay marka oo ku dhahay waa confirm gareysay marka xag ka samays kadib taxmis ama email ku soo dhacay oo ku dhahay waa confirm gareysay qofka la shaqeyn lahayd shiftiga number uu leeyahay numberkiisa daycareka magaciisa iyo qofka oo substitute ama qofka adiga oo dadka la shaqeyn rabo star ID numberkiisa aa lagu saa marka facility magaceedu waxdina lagu sharaxaa marka hadda mar labaad oo lagu sheegaa wax walba sidii kala yihiin hadda wax su'aalaha qabtid markaas maxay ku leeyihiin haddii oo shaqadan markaas aa ogolaatay isla markii haddana isdhahay shaqadan aan ma samayn kari isla markiina imagine soo xirta uu sheeg shaqadaas aa ogolaaday laakiin ma samayn karo wax kala jiro ama shaqada qalad ay iga noqotay sidee taa markaas in imagine soo sheegdaa shaqada samayn kara samayn kartid markaas ma u baahnid inaad soo wacdid qofka markaas la xiriiraya ama isa qof kula soo xiriiraya shaqada aad la shaqayn lahayd haddaa wax su'aalaha qabtid ama haddaa wax fahmi weysay ama haddii oo wax aad samaysay qalad kaa dhacaan mar walba imagine aa soo wici kartaa nambarka ama email aa noo soo diri kartaa oo wixii kaa qaldamay isaarta in lagaaga caawiyo si in lagu saxa u baahan tahay mar walba waana soo wici kartaa marka hadduu qalad kaa dhaco ha ka aamusin sababtoo dad badanaa jira shaqaalo u baahan oo markaa oo ka idhahdid dadkaas u qaadanaya inaa shaqaalihii u imaan rabo marka haddii aad qalad kaa dhacay og tahay aadan ogeyn ama qalad kaa dhacay og tahay qalad kaaga dhacay mar walba nala soo xiriir si aa qofkaas ugu sheegno inuu qalad dhacay ay tahay uusan qof usoo soconin sababtoo marar badan ay dhacdaa inuu qof shaqadii dhowanaa imaanayo oo shaqadii qaato haddana uusan shaqadii aadaynin oo qofkiina ku xisaabtamaya leeyahay shaqadeeda qofaa qaatay oo ii soo socdo haddii qalad kaaga dhacdo mar walba nala soo xiriir fadlan si aa u saxno oo qofkaasna uu ogaado inaysan qof weli uusan haysanin insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu